Ladies and gentlemen, waa idin salaamay. Videogan waxaan igu tusi doonaa markaasi website aan designadooda ama naqshadooda markaasi aan dib u bedelnay oo markaas dad customerska ah markaas ama macaamiishan ay noo dhiibteen. Waxaan arki doonaa markaas website qaabka marka hore uu ahaa iyo kadib markaas siduu isku bedelay. Markaa muuqaalka dhammaystiran wada daawano. Website-ka ugu horeeya markaasi aan designkiisa bedelno waa kana. Magaciisa waxaa loo yaqaanaa markaasi Mohat MGL oo u taagan markaas Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management.so. Website-kan markiis u horeysay sidan buu ahaa gebi ahaantiisa page-ka meel walba qaab walba website-kani wax dhisnay ma laha. Markaan website-kani waqti ayaan gelinay oo design-kiisa waan bedelnay. Markaan isla aragno website-kani koobaad ee sidan u ekaa marka hore sida aan markaas naqshadiisa u bedelnay. Haddii aan tab cusub marka furno oo haddana aan website-kii aan design ka bedelnay aan soo galno isla asigii mohatmgl.so. Website-kan waxaa ujeedaa markaasi wejigiisii hore iyo hadda inuusan islahayn oo gebi ahaantiisa markaas maxaa lahay aan bedelnay oo page walba iyo meel walba aan ka bedelnay. Optiono badan ayuu leeyahay website-kani oo aan ku soo darnay qaybta homepage-ka oo kale inaan u sameyno markaas menu cusub, sidoo kale inaan u sameyno qaybo project ahaan waxyaabo badan inaan markaan website-kani maxaa lahay aan ka bedelnay. Marka website-kani saa ujeedo markii hore iyo hadda farqi weyn ayaa u dhaxeeyo. Website-kani marka hataa page blogging waa u sameynay sida meesha ka muuqato markaas saa ujeedo oo dadka article iyo waxyaabo ay soo gelinayaan. sidoo kalena qayb waxaan u sameynay website-kani mobile ahaan oo mobile haddii laga soo galo waa kaas sidaas uu soo muuqanaa menu-giisa waxyaabaha dhan dadka mobile-ka haystana markaas sidaas uu soo muuqanaa oo marka hore iyo hadda farqi weyn ayaa u dhaxeeya. Marka website-kani isagu design-kiisa sidaas ayaan u bedelnay. Marka website-yada kale ee xiga markaas iyaguna isla aragno. Website-ka labaad ee isaguna aan design-kiisa aan bedelnay waa kana. Magaciisa waxaa loo yaqaanaa markaasi Joker Media. Website-kani saa ujeedo waxaa iska lahaa dad ka mid ah clients-keena ayaa markaas noo keensaday. Design-ka website-ka marka hore saan ujeedaa saan ayuu ahaa marka hore aad uma qurxaneen loogadiisa iyo header-kiisa iyo maxaa qaybaha menu-gaas oo dhan oo uu markaas isku dhex yaacsanaa website macnaha professional oo kale uma eken. Marka website-kani aragna isaguna markaas maxaa lahay qaabkan u bedelnay oo aan dhisnay. Haddana saa ujeedo haddii aan tab cusub furno website-kii aan soo booqano saa ujeedo markaas sidan ayaan u bedelnay naqshadiisa. Theme cusub ayaan saarnay. Theme-kani muuqaal waan ka sameynay hadda ka hor sida loogu sameeyo news website oo YouTube-keena waa ka helaysaa haddii aad fiiriso tutorial-iska. Theme-kan ayaan markaas adeegsanay oo waxaan ka dhignay website markaas news ah oo professional ah oo markaas qaybo categories badan lahan sida sports, health iyo news iyo maxaa lahay waxyaabo kale badan qaybo affiliate links uu leeyahay. Marka inkastoo xogo badan ay u dhiman tahay in la soo geliyo website-kani isla haddana sambal ahaan qaabkaas ayaa markaas u dhisnay oo afterkiisii markaas uu ku soo baxay markii aan naqshadeynay. Haddii website-kani mobile laga soo galana sidaas ayuu u soo muuqanaa menu-giisa iyo loogadiisa iyo waxyaabahaas oo dhan qaabkiisa iyo design-kiisa ayuu u soo muuqanaa. Marka hore iyo hadda saa ujeedo marka farqi weyn ayaa u dhaxeeyo oo markaas markii la isla barbar dhigo. Markaan u gudubno website-yada kale ee xiga markaas iyaguna aragna sidaan u naqshadeynay. Website-ka saddexaad ee xiga markaas magaciisa waa kana. Waxaa loo yaqaanaa Jason Reviews. Website-kan marka isaguna sidaas ayuu marka hore u ekaa website waxaa laga rabaa qaab blogging oo kale ah laakiin design-kiisa iyo waxyaabahaas markaas aad iskuma dheelitirnaan. Sidoo kale page-ka saa ujeedana qaar badan ayaa ka maqan qaybta menu-ga iyo loogada iyo waxyaabahaas kale qaybta header-ka wax yar ayaa markaas ka qaldan. Marka website-kan isaguna design-adiisa waa bedelnay marka aan hal mar dib isla fiirino oo aragna sidaan markaan website-kan isaguna aan design-kiisa aan u bedelnay. Website-kani haddii la soo booqdo sidan ayaan u bedelnay markaas wejigiisii hore qaybta ugu horeyso. Sidoo kale waxaan u sameynay markaas post grid ama post ayaan u sameynay markaas post grid waan u sameynay post markaas dhowr oo qofka akhrisan karo. Sidoo kale footer waan u sameynay. Sidoo kale page kale ayaan u sameynay markaas oo blogging about us iyo contact us. Qofka hadduu post-yada hataa ku dhufto hadhow uu sii akhrisan karo si nadiif ahaan. Website-kan isaguna marka wuxuu ka mid yahay website-yada markaas aan design-adiisa aan bedelnay
oo markaasi saa ujeeda markii hore iyo haddana markii la isbarbar dhigo farqi aad u weyn ayaa markaas u dhexeeya website-kan. So aan isla egno markaas isaguna website kale oo markaas isaguna aan design-ka aan ka bedelnay. So website-yada kale oo isaguna markaas aan design ka bedelna waa kana, waxaa loo yaqaanaa markaasi Review World. Website-kani website wuxuu ahaa products iyo waxyaabo la soo gelinayo markaasi, laakiin still website-ka wuxuu ahaa mid aad u yaro culus, design-adiisana wax badan ayaa markaas ka qasnaa. So marka website-kani isaguna wuxuu ka mid yahay markaas kuwa aan markaas naqshadooda aan bedelnay. So marka isla fiirino sidaan u bedelnay. So website-ka waa kana, sidaan ayaa markaas wejigiisa hore aan u bedelnay. Website-kani waxaa kaloo markaas aan ka dhignay laba waxyaabood, website e-learning iyo website markaas product iyo waxyaabo la soo gelinayo isku dhex jiro. Laba shay markaas ayaan isku soo darnay. Qofka markaas inuu qayb koorsooyin soo gelin karo, qaybna products uu ku iibin karo, qaybna maqaalo mase articles uu soo gelin karo. So website-kanina markaas aa ujeedo contact badan aa u dhiman, sida koorsooyin badan iyo products iyo badan ayaa u dhiman in la soo geliyo, laakiin hadda halahan waa sambal ahaan ayaan u soo gelinay. Marka website-kan wuxuu ka mid yahay isaguna, haddii aad booqato waa arkaysaa website-yada markaas maxaa la dhahaye aan design-nada markaas aan ka bedelnay. Sidoo kale qaybta kore waxaan u sameynaa qayb markaas login iyo registration ahaan, oo qofka login iyo sign up buu ku leeyahay oo koorsada ka daawan karo, iska diiwaan gelin karo. So menu-giisa isku dhammaystiran yahay waxyaabahaas oo dhan. Website-kani marka gebi ahaantiisa waa mobile sidaas ayuu markaas maxaa la ugu soo muuqanaa, wuxuuna ka mid yahay website-yada naqshad gareyna. Marka sidoo kale waa ay jiraan website-yo kale oo markaas design-kooda iyo waxyaabahaas aan ka bedelnay. Dhammaantoodna marka waqti uma heno hal ma soo qaadan karno. So koorsooyin cusubna waan soo wadnaa markaasi. So haddii u baahan tahay markaas in website design-ka lagaga bedelo markaasi uusan website-kaada attractive oo soo jiidasho lahayn, hadda waa nala soo xiriiri kartaa. Maxaa la dhahaye waan kaa caawinaynaa, design-ka waa qurxan, waan kuu saaraynaa theme iyo waxyaabahaas la midka ahan. Haddii markaas aad rabto inaad barato xirfadan website samaynta, koorsooyin dhowr ayaan markaas jirto oo website-kan aad ka helayso, YouTube-kan aad ka helayso. So iyadana waad ka faa'iideysan kartaa markaas. So muuqaalka xiga iyo qaar badan.